السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين صاحبتي مي في عنتهين ولي لحدي يكون وحيرا نوغو هارتي سبسكرايب كبقول قفوضا نوغو هارتي يديكو آدي أد مهسن سبسكرايب كدانا ولي إيسارنها إيسارة ما أنت شاكا ذي هايو إنجليز كي كدعدن وشاكا عجيب له ولكن كوريجينيس أدن maxay ku wareejinaya waay dhowr waxay ku geenaysaa oo wadanay shaqo qisadan ku geenaysaa qisadan ingiriiska ka dhacday ninkaneetood magaciisa waxaa la yiraahdaa Bruce wuu xirnaan jiray waxaa lagu xiray tuugnimo yar gaari xadid iyo waxaas lagu soo xiray waa u soo dhamaatay waa la soo deeyay ninkii reerkiisa oo yimid 3 caruur oo lahaa oo wiilal ah iyo xaaskiisii oo yimid wuxuu yiri guri baba ni iibinaya waxaaba yaab leh qof gaarsi hada laga soo deeyay lacagta meesha ku ogiya guri ku iibsanaya وصاب بحي وحو تجي ساحب كيس أو قارشر إسقاط برتين أو قارشر لقى سو ديجي بو وعذا وحيري هبلو وحوم بهنا هالعك إديمي العك أن ريركي جرو إيبيو وحيري روح مكوش جا أنا العك وما هاي لكن بروجكتم كو هاي نو إماو سدح يتبرك أنيجي أديك شنتي يتبن كناس باوحا حسنا برنامج كسرنا إن الدجنو هدي إنرجي تايم هيسد نقص بير أذن حقاقة لوكسينا العك هذا لوكسينا وأكون جراو يري ويسكو إمادين ميل يسكو إمادين وحيدهن نين information كان نسينايو أو كشقيو ماشي عندي عربنا مركا إن ماشي عندي عربنا وحواي ترين عندنا ترين كان حكوا إمانا قبل كاس وإنجليز كمده قبل كاس كان لمو آذايا وحسارا لعق آد وفربنا ترين كسارا information كان ماشي شقيان لصوصي وأنا القيب سنة لعقتي مركا تاسان تجينينا وحسوقتين غلوفس سوقتين إقعمها حرتان waxay soo gateen maaskalato oo wajiga ku xirtaan wala deji projectiga la deji waxa la dhahay tareenka markuu meeshas maraayo intuu gaarin meeshas kaleentood waa inaan u suubinaa si beebeen aan ku istaajinaa nal oo waxaan sameynaa dhaheen oo bug ay sameynaysiin oo nalka meesha ku istaagi lahaa oo cagaarka ka noqon lahaa aan ahayn waxa agtay maxal dhahaa meeshii busteejada ka hor adiga على أي حال محلها أو سمعنا إنه كيستاجو نال ببين على صوبي أو بتر كوسعده نال كي مركو ترين كمال ده كسو أركي وسوق بوجيه مركو سوق بوجيه أو نال كويمد مش أصدق مش تكجوينا وأمجارياش إسكتافا يومه لكن مش عن أيها سوسيدين وعمل إلا ماشي مركو استاجي شنتي طبعا كي رك ومش تاجنين ترين كي كسو بودين نيكي جاري وذاي ترين كوذاي بستول المهيسن كان بستول مش يعني وقتها سنة المهيسنين تذكر الإنجليز كسيد أمريكا وكلام معها تذكر بستول مهستان مركا قارك هستا حتى وقار توجو أو سكست وقرسينهن لكن وقتي أرنت على دعيسي أرمها هذا حرنايت هاد واحد كستوا فرمين مركا على أي حال واحد عدنيكي أو ترانك وذي ماذا حال رفتي كوي كلا كشقينا صارنا ماذا حال رفتي وحلاقة دجية بقول 25 بورصة أو لعك بوحدو أو نودقمة لعكتاس 2.6 مليون ودقمته 2.6 مليون 6 مليون وحير دمان لعك قيمتها لقاس إيقاتين 2 باور راند روفر كلتين جافي دهين بروجكت جود waxaa ku jirtay inay meel ku deegi doonaan qof ayaga kamid ah guri oo baadiyo ku lahaa inay degaan oo lacagta ku kala qaybsadaan ee nin kasta jidkiisa ku dhaco si aan loo soo qabanin gurigaas marka si aan farahooda loogu helinne dad kale si ballamiyeen oo guriga in la gubo loogu talagalay marka dadkii ay ballamiyeen in guriga gubo dadkii ma inay imaanin booliiska ciri dhul laga raadinayay waa la imaaday guriga la imaaday farahooda la helay waa la soo wada qabtay waxa la gaashira lagu wada tuuro 30 sano loo qoray inay xirnaadaan bruce ku soo booday wuxuu yiri ani tan ma ii qorno meeshan ma joogi karaan jaranjaro oo wuxuu subsaday oo xeerka laga sameeyo samaystay gaarsiradii waa soo gooyay markuu soo gambiyay lacagtiisana meel u taalay wuu soo cararay ninkii wuxuu ku shubay Faransa reerkiisii oo wacdi wuxuu yiri Faransa igu imaado Faransa tageen Faransa intuu joogo wuxuu sameeyay wajigu badashtay wuxuu galay operation oo wajiga lagu bedelayo wajigu badashtay wajiga loo subsaday haye maxaa la sameeyay asi ilmihiisa waa soo raaceen baasaboor bug adduunyo subsaday أستراليا لو شو بهدنا أصلا أستراليا جوجو ومالين أو حنيس أو سكبا شالة ترتيب كسر حسنا أسي الميسة مالين يحس كيسة مالين ونيس كحك أركا أسيقو نكل رادنا يقولوا لي مالها نوجوجا ناكتيسي الميسي وأوجنبينه وعري وحو آذي إن
meesha la dhahay Brazil. markuu Brazil aaday waxaa dhacday marka meeshaasitood xaas ma la socdo meel uu ku baashaari jiray oo gabar ka soo bartay gabadhii markuu soo bartay wuu aroosay oo Brazilian ilmuu ka dhalay way soo ogaadeen dadkii la dhahay Scotland Yard la dhahaa Ingiriiska askarta oo waxyaalaha khatarta u qaabilsan kuwiyaa soo ogaadeen way tageen wadankii weydiistay waxay dhaheen ninkaas gacanta noo soo geliya anagoo naga maqan yahay adduunyada soo qarabtay waxay dhaheen ninka horta ko maniisi karno number 1 number 2 anaga sharciga noo dhagsan ilmo Brazil aabahood gacan ma u gelin karno maxaa la dhahaa qolo kale maniisiinayno way cishteen tuugooda waxay dhaheen ninkaan lacag haystaa sharcigaas ma dhagsan yihiin anaka idinkana waxay dhaheen cilaaqaadka oo siyaasadda ma naga dhaxays dad inaan isdhaafsano inuu kala wada kuwii ka imaadeen Ingiriis ka imaadeen way noqdeen ninkaaneetu wuxuu noqdaba nin wuxuu noqdaa caan dhalo noqdaba ninkii lacagta soo dhacay ninkii khatarta ahaa wuxuu bilaabay shaqo marka hore wuxuu ka shaqeynaya markuu yimid intuuna magaxal dhahaa oo dowladda soo ogaala Ingiriiska wuxuu ka shaqeyn jiray dadkan dhulka wax dhadhigo kaarbeedyada iyo waxaas dhadhigo oo wadankaas ka shaqeyn jiray because haddii oo qalad ku jirtid si aad isku qarisid waa shaqo yar inaa heshid oo ugu dhumid dadka waxa aad samaynaysid allo ninkan wadankaasoo ka yimid engineer waaye ambe fuundi waaye fuundiga dhulka dhigaayo ha la xal asiga markuu ka shafmane meeloo fadhiistaba ninka wuxuu bilaabay inuu dacayada suubiyo wadankaas qofkii ka soo baxo asoo dacaydeynayo tuuganimadiisa wuxuu ku yeeshtabo wiji fiican ku yeeshtay wuxuu leeyahay qofkiga markuu faaninayo wuxuu dhahay oo kalentod la dhahay maxaa la dhahaa haddii aad rabtid waxyaalahan oo kale inaad subisid amba gaarshida usoo gamisid kafeegaan oo kale cab oo dadku dhahaya la dhahay yacni sheekadu waxay noqotay sheeko yaab leh Ameerikaanka uu imaanayo dadka caanka ebo inay isku sawiraan warqadina u saxiixo ninka oo kale hataa Ameerikaan oo heeso wuu la heesa xataa heeskiisii wixiisa waxaa la dhahaa wuxuu kasoo muuqday videoga markaas laga duubayo kasoo muuqday alaa ii taxal ninka wuxuu noqday dadka oo qatarta xaafadda degan oo maxaa la dhahaa ninkan tuug weynaado oo heer sare gaaro waayo oo heerkaas usoo gambiya la dhahay okay maalinaa la ballamiyey ninaa ballamiyey iigu imaa yiri meeshaas dad interview ka qaada meesha markuu tago interviewga laga qaaday ninkii laba nin ah heleen oo ka imaadeen meel yiraahdo Barbados Jamaica dhinacaas iyo ku taala oo ka imaadeen way afduubeen waxay ku ruteen gaari ku rubteen way sii kaxeysteen doonay ku qaateen Barbados wadanka la dhahay geysteen meesha markay joogaan hadda Ingiriiska ka dambeeyay ninkan soo sii dhaheen ninkaanitood waa u baahannahay anagoo naga maqan yahay wuuna soo dhacay ninkan Ingiriiska na siiya Barbados kan waxay dhaheen anaga dad maniga dhaxeen aniga idinka managa dhaxeeyaan maxaa la dhahaa inaan dad isdhaafsano marka nugu kala waday dhaheen maxaa soo haray ninkii markii oo tuugadii iyo waxaas waxba ka heli waayeen waa la soo daayay Brazilkiisa soo noqday sidoo Brazil u joogay oo noloshiisa iskaga watay oo meeshaas khatar ku ahaa maalmaha kana jira ku dhacday marka wuu xanuunsaday dhinacaas ne daawadeeda saas uma fiicno wuxuu yiri saan u jiraday meeshan mi anficayse waxaan sameynaa wadankayga tagaa wix ka dhaco Ingiriisku ka soo degay markuu soo gaday horaa laga qabtay waa la xiray laakiin daawo fiican la siiyay istaalada la xiriiray iyo daaweyn badan oo qaatay 8 sano soo xiran oo daawadiisa maxaa la u sii socoto wuxuu sameeyay 8 sano kadib waxa uu dhamaaday xirigii uu dhamaaday waa la soo deeyay wadanka marka lagu soo deeyay waxa ku dhacday tiisiya u timid meesha ku dhintay ninkii marka saaxiibayaalow arrintaas arrin weyn waaye oo wadanka ka dhacday 1960kii 63dii uu ka dhacay wadankan inta marka intaas rabnaa in la wadaago caawa sheekada intaas ay ahayd waxyaalaha yaab kale oo Ingiriiska dhacay kamid tahay aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh